shirka horta saan inuu dadku imaanayo ugumana talagelin shirka laakiin uu batay dhib ma leh which is good yeah marka badnidana waxay keenaysaa isjecelka dadka isjecel yihiin nin walba ku shirka maqlay meeshu joog socday marka annaga markaan Soomaali nahay adduunku wuxuu shaqeeyaa dadka hadday 10 qodob ka hadlaan 9 qodob bay isku afgaran waayeen hal bay isku afgarteen halkaasay wadaayaan kii kale ilaa 10 markaas ama meel baa laga gaaro annaga haddaan Soomaali nahay markaan 10 qodob ka hadalno 9 haddaan isku afgarano hal aan isku afgaran waayo halkiyaa markaa wuxuu noqonaa jo aan dhaafin wuxuu noqonayaa marka anaga Mareykan joognaa waxaa fiican bay'adda iyo deegaanka ku nooshahay wax ka bartaan fiican 350 milyan aan ku noolnahay hatta anaga Soomaali iska anaga Itoobiya la kala garanayna wallahi la kala garanayna marka anaga dadkan baawrkooda 100 buu ku socdaa marka inaad 100 ku socoto si u gaarto ama u dhaafto laakiin marka 150 ku socdaan hadda adiga 20 ku socoto William Garrison marka anaga marka waxa way dadkan speed limit ku socdaan ma gaarin wali ma gaarin waxa kale oo jirta wax leverage ama waxa jirta credit already Soomaali meel u yaal Soomaali waxa noqotay dadka immigrant-iga ee gadaal wadanka imaaday muslim leh hadana straight meel u gaaray ee noqotay maalin waxa soo Hamza Warfai soo waa assistant commissioner Minnesota Department of Economic Development is all Arab وراح اسكت افضل ولدي كو سومال افر بقاطه بورد سوينا ديمقراطي وديرو that's all you need anaga wuxuu dhahay straight Biden markay soo degaan anaga noo imaadaan oo Arab Afrikaan waxaan gadaashina imaadaan oo ina idin wax ku doogo gabataan ma oga marka anaga dadka waxa way challenge iska jira waa gaar soo inaan ku mashquulno waxa way challenge aniga nagu weyn oo ama weakness aan leenahay inaan ku mashquulno maaha inaan inoo garano aan ka gudubno midda kale muhiimka waxa way wax hadaan fahmin waxa ka soo hadaan fahmin waad ku wareeri this thing arin community Somali waa NGO entity gooni ee meel taalo maybe sidoo kale jirta Somali community jirta laana waxa ka hadlay waxa qofka Soomaaliga ku hadlay meesha wax ka imaado kii Djibouti ka imaado kii Ethiopia ka imaado kii Eritrea ka imaado Soomaali way ka jiro taas waxa anaga aan raadinayna kaas okay waxa kale aan raadinayna dadkan hadda aan raadinayna inaan u cadeyno in anaga wax ka helno individually lacag siiyaan hourly ama mataqaana 200 300 500 kuna soo qaadna ma in anaga aan wax bixino shalay aan kala meel tagnay I offer them lunch all of myself in a bixi on Tuesday all of qodada ana baxaan jibkayga baxaan Han Johnson who is noo keenay iyo hooyadiis wuxuu noo keenay iyo xaaskiisa isku weeymaan asaga wuxuu ka baqaa kaliya dimuqraadiga nomination ka baqaa inta kale kama boqoto kaas soo baxo inta kale uu helay marka dad weyne maxaa sameeyay xataa qaadna u geeyay meesha u geeyay shaqaalaha codsi maalintii wuxuu dhahay naagti waxa la dhigay naag Iran oo baabka English ku jirto amrusi wuxuu dhahay waxa hayso jooji kursiga aan Soomaali keento marka marginka wuxuu kala helay aad u yaraa so 2000 3000 كل حوار بلان كهلا لا سواي مثلا وصبح marka anagu waxa fiican waxaan horta waa ordayna waxaan ordayna horta ognahay in wixii horta aan fahmo anaga marka dib banaaysto waxa way meeshan madow cadaan iyo madow waa sabab madow dominant ka county aan joogo anaga madow waxa ka sii jirna marka madow naftiisa ila qabsano ana wixii kale idinka qaateen ya أو أنا وحين أو لكن أنا أرادني إن أنا contract list يا أبو حاهر معها وأنا وحسب أنا دي إيجا دي دستوري نايت الجوت ويرني إلى أمريكا ملانا كشيني مساعدك المجنون أو حفلتك درتو باقيني دي إيجا نايت تسوق الشيء أنت كيس أو جين لك عاوز أملك إلى أمريكا لك عاوز تذكر مرة حد إنه بايني لكن سنة اللي حسن أفرس الحفيز فقدنا يعني أو بحنا سام كذا أو بحنا
marka hadda waxaa waaye this meeting laba shay ay soo baxdo wilaamada kow actual saddex shay shaqadana haddii aanay yeelanin leadership ama mataqaanaa qaab aanay yeelanin balan aanay yeelanin shaqada ma soconayso kow waxaa rabaa inaan ku heshiino labada beri soo hartay saddex beri soo hartay dad team ah oo isla shaqeynayo in meeshan ay kasoo baxaan oo Soomaalidu ay og tahay teamkaas waxaa kamid ah markaan shaqada waxay sameynayaan campaign ay dhameystirayaan campaign markuu dhamaado haddii raggaas ay guuleystaana then sidii lagu dabageli lahay wixii laga qaban lahay ay sii dabagelayaan last number 1 number 2 teamkaas marka inta laga helo team volunteer way number 2 shaqada inaan isla balan gareyno aan qaban karo saddexdan beri 1 2 3 ilaa qabano qodobka saddexaad waxaa weeye resource u baahannahay in annaga aan resource waxyaaba aan samaysano maybe power aan kareysano maybe inaan wax kale aan samaysano annaga dhexdeena wax ma u baahannahay inaan isweydiin hadday yes noqoto inaan sanfan annaga aleyna inaan keensano $1,000 $2,000 $3,000 wax intaa ahaa oo adho wax ku qabsan karo inaan samaysano saddexdaas shay laakiin mid ugu muhiimsan waxaa weeye team inuu meeshaan kasoo baxo oo teamkaas uu shaqeynayo like maalinta Tuesday-da teamkaas ay noqdaan team coordination leh xaafadihii iyo wixii shaqada ay qaban lahaayeenna labadan beri ayaga meel si dhigtaan taas aniga aan dhihi lahay mataqaanaa aan soo xirno sheekadan aan wadno marka anyone say something or السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا الله. أنا مو بدي أنت ضد ما نوين وشرتيرو لكن I think it's good إن الله قرنا صح. برضه أريد أن أقول هذا اليوم أنا في volunteer أنا بتشري وهذا ما كده ورشين كسردين وان إني من السي بي اللي هذا ما وقيل إني سومالي واحد كسر المكتب. أنا تجلس يصير درام أنا هو 12 hours شقينا أنا هذا نوعي ممتع dadkan wacay qaar baa yaacay qaar baa I don't care maartay laakiin waan gaarsiinayna bulshada dadka qaar oo bulshada marka waxa la yiraahdaa hadaan miiska wax lagu qaybsan hadaan joogo and you see on the table you are not sitting on the table you on the menu de waxa ma qabsanaysa maartay kalota shanay maartay lagu tashanay lagu qabsan marka waxa wanaagsan tahay society markay meel joogaan inay waxa meesha ka jira maartay inta aad ugu shiib noqon lahayd adigu ku tashanad menu-ga noqon lahayd inaad ugu wado aad miiska fadhido dadku wax la qaybsaday taasna waxa koow ka dadku inay markuu united yihiin anigu waxaan aaminsanahay dad community Soomaalida Allahna inay yihiin one of the best sababtoo ah number 1 horta dadku difference hay lahaadaan ummadka adduunka oo genius ana ma jirta maartay saxaabadii wax taa kala duwaneed muuqda laakiin waxaan nahay dadka kaliya oo aaska wada aasta arooska wada taga shaah wada caba kaftama inuu meelaha kale wax marka in ku wanaagsanaa laakiin marka si loo eego as a community inaynu wax qabsano systemkii dadkeenu la noolaayeen wax la qabsano taasaan moodaa we lagging on that marka way maadsan yihiin aadan iyo gabdhaha iyo dadka maartay soo qalqaaliya arrintan unfortunately siyaasiyiin ma noqon karayno maartay لكن waxaa muhiim ah oo anigu aan aaminsanahay we need a platform dadka Soomaalida ee degan marka Atlanta Metro in aynu yeelano organization is registered garino number yeelano oo marka dadkan aynu hadda bood ka raadinayno inaan okay we have 300 people oo Soomaaliya okay marka qof wada xisaabtan karaysa because you have your numbers iyo maartay waxaad ku baagaraysid laakiin maalinta wuxuu yimaadaan haddii aynu boorarintaynu qaadano maartay sida xumbadii muxuuha doorashadaas ugu dhamaatay then everything finishes anigu waxaan aaminsanahay kaa waa laga fiican yahay marka waxaan ka codsanayaa dad leaderska ragga iyo dumarka meeshaan maartay arrintan wada in arrintan ay noo noqoto bilow wanaagsan aad inoo samaysan organization Soomaaliya aan wadaagno magaca Soomaaliyeed aan yeelano members muxuuha hadhow aan la xisaabtano dadkan aan doonayno magaca ama ha noqoto marka student ama ha noqoto waxyaabo inaga community oo khaas ah sports teams baan leenahay scholarships baan u baahanahay shidadkan iyo waxaan kale